sugan kala soco Somali Public Radio idaacadda bulshada Soomaaliyeed Somali Public Radio SPR.FM daawadayaal kusoo dhawaada Somali Public TV oo ah idigu ugu horeeyay ay idin soo gudbinaysa wakaaladda warbaahinta ee Somali Public Media waa adeega saxaafadda Soomaaliyeed horena aad uga barateen radio-gii laanta dheeraa ee Somali Public Radio aad ka dhageysan jirteen Minneapolis iyo Soomaaliyaba haatan waxaanu kusoo darnay TV waaxdiisa cusub barnaamijyada TV-ga ugu horeeyay Berlin aan ku bilaabino dadku inaga filayaan maxaa kamid ah waa su'aal wanaagsan maadaama TV-gana daahfurkiisu uu ku soo beegmay maalinta ciida Carafa waxaan jeclaan lahaa inaan jileecno barnaamij ay noo soo duubeen Saalax Doonyaale iyo ninka la yiraahdo Xuseen Xuska oo lagaga hadlayo sidii looga ciiday magaalooyinka Soomaaliya waa gartay daawadayaalna la daawada barnaamijkaas magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa dabaaldega Ciidul Adxaa si weyn looga dareemay masjidka isbahaysiga islaamka ayaa waxa ku tukaday boqolaal ka mid ah shacabka reer Muqdisho sidoo kale waxa goobtaasi ku soo tukaday madaxda dalka Soomaaliya oo ay kamid yihiin madaxweynaha dalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha cusub gudoomiyaha baarlamaanka waxa sidoo kale goobtaasi ku soo tukaday xildhibaano saraakiil sare iyo waliba qaar kamid ah madaxdii xukuumadii la weydaartay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa goobtaasi ka hadlay isla markaasina hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed uguna baaqay in shacabka Soomaaliyeed ay nabadda ku fara adeegaan isla markaasina ay iscafiyaan dhanka kale garoonka kubadda cagta ee Daalo Stadium ee magaalada Ceerigaabo xarunta gobolka Sanaag ayaa waxa isugu soo baxay dadweyne kor u dhaafaya kumanaan kun oo halkaasi ku oogayay salaada Ciidul Adxaa waxa goobtaasi ka hadlay qaar ka mid ah culamaa u diinka gobolka Sanaag maayirka magaalada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo dhammaan shacabka ugu baaqay in ay ku dadaalaan amniga iyo horumarka gobolka Sanaag oo ah gobolka labaad ee ugu weyn 18 gobol ee Soomaaliya maanta waa maalintii koowaad ee Ciidul Adxaa muslimiinta oo dhan meel walba ay joogaan ay ku ciidayaan farxad magaaladani Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo horey dadweynuhu ay ugu ciidi jireen ama salaada ciida ay ku tukan jireen garoonka kubadda cagta ayaan maanta arintu saasi ahayn maadaama magaalada Boosaaso uu qabtay roob si weyn ay dadweynuhu ugu diirsadeen masjid ad-dacwa ee magaalada Boosaaso ayaa mas'uuliyiinta iyo inta ugu badan ee shacabka magaaladani waxa ay ku tukadeen masaajidkaasi gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Maxamed Gallan iyo gudoomiyaha degmada Boosaaso Xasan Cabdalla oo ka soo qayb galay salaadatan ayaa waxa ay bulshada ugu tahniyadeen ciidatan in loo naxariisto oo la gargaaro dadka masaakiinta ee magaalada ku nool gaar ahaan waxa jira dad afkiiga gacantiisa waayay oo badan oo degan magaalada oo guryaheeda dhinacyadooda jooga gaar ahaan waxa jira dad aad u fara badan oo 120 ku dhow weeyaan oo barakacayaal ah oo intooda badan ay ku nool yihiin bariga Boosaaso dadkaas waxay u baahan yihiin gargaar waxay u baahan yihiin gacan islaamnimo u baahan waxay u baahan yihiin in loo naxariisto waxaan halkan ka taaganayaa munaasabada ciidda Ciidul Adxaa ummadda islaamka meel kasta oo ay ku nooshahay gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Puntland nabiga ka hadashay daacadnimada rasuulkiisa waxay noo bilaaban doonay in tuulooyinkii iyo degmooyinkii ay codadkooda ay
xuseen xuska Somali Public Radio SBR Boosaaso. magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan ayaa waxaa sidoo kale isugu soo baxay kumanaan kun oo shacab ah kuwaasoo ku tukanayay goobaha salaada iyo weliba fagaarayaal ay ku oogayeen salaada ciidda. masjidka jaamaca ee ku yaala bartamaha magaalada hargeysa ayaa waxaa halkaasi kula tukaday madaxweynaha maamulka somalilan axmed maxamuud maxamed silaanyo. barleene barnaamijkii aan hadda daawanaynay daawadayaashuna daawanaya barnaamij aad iyo aad xiiso loo ahaa dad badanna gelinaya xusuus. maxaad ka xasuusataa aduu Soomaaliya markaad joogteed yareed ciidihii iyo barnaamijyadii Soomaaliya sidii looga ciidi jiray؟ والله ملوالو هدان كوسو قاطو waxyaabo badan baan ka hadli karaa oo ka xasuusta Soomaaliya laakiin waxaan aad u jeclaa on hadiyo goor xasuusta oo marmarka qaar kood igu soo dhacday inaan daba gaab u qaato ordo waa buufinkii ma garanaysaa carruurta ay ka dawoodi jireen aad iyo aad aan xasuusta waliba anigu waxaan xasuustaayo midii oo baqtiya nasiibka lagu ciyaari jiray numberka la soo goosan jiray waligii laakiin nasiib uma helin tan weyn aan soo helo waa ku tartami jirnay aad iyo aad xusuusta Soomaaliya aan ku sii jirnay ma xasuusataa orodkii Soomaaliya iyo malahan jirin gawaari waxyaabo saasa ma ka xasuusataa wax orodkii iyo socodkii dheeraa iyo Soomaaliya iyada ma soo xasuusataa ma isku kaftamayna iyo waxay gaabiye waa orod hadda wigi dhaweyto barnaamij baan ku hayaa adiga iyo dadkeena daawanaya xiiseeya orodkii Soomaaliya ma xasuus u leba barnaamij baa jiray هليجنا عبد الله عبد بلا عبدي ولين عانه إنه منيابلس يمي ويجي دويت وكسوق يبقى البرنامج اللي يرادو رنت يونايتد with عبد بلا أو سوق من قابسه هايد ARC برنامج كاس أو كده عم قالوا منيابلس وحنا يبقى لي وريها هيجي صالح نور صالح دنيالي وأنا تنا وربحنتو نوغسو دياري magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa waxaa ka dhacay munaasabad loogu magac daray Run to Unite oo ay soo qaban qaabiyeen hay'adda gargaarka ee ARC. xafladan ayaa waxaa lagu cazumay orodyahanka Soomaaliyeed waa halyeyga Soomaaliyeed ee Cabdi Bile Cabdi. waxa la yiri waa la ordaya dad fara badan baa laga bijiyo waxa la yiri bahalku waa orod maanta orod kaliya maaha waa la soconayaa waa la ruclaynayaa waa la taabacayaa in badan sacabkay tumaysa haddii intaa samayn kari weydo waynu ka wada qayb qaadanaynaa aniga lafteedii dawaan gaboobay imika maanta socodka ku jira xafladan ayaa ulajeedadeedu ahaa sidii lacag loogu ururin lahaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalka Soomaaliya gudihiisa on behalf of the Dahabshiil network dhanka kale shirkadda xawlaadda ee Dahabshiil ayaa ballan qaaday in ay bixiyaan lacag u dhiganta inta maalintaasi goobtaasi laga ururiyay maanta Run to Unite waxa soo qaban qaabiyay ARC oo iyadoo ah hay'ad faa'iido doon ahayn ee ka fadhigeedu yahay dalka Soomaaliya magacayga Furtuun Sharaf leh from Rochester Minnesota maanta Run United aan ka soo qayb galay to meet Cabdi Bile and United oo intiga loogu talagalay ma sha Allah beautiful so far wallahi waa arrin weyn waa arrin oo meel kasta looga soo baxo Soomaalida inay United noqoto meel kasta adduunka joogaan boqolaal Soomaali iyo ajaanib isugu jira ayaa halkaasi fursad u helay in ay la sameeyaan orod socod kabla iyo waliba in ay la rucleeyaan orodyahanka Soomaaliyeed ee Cabdi Bile Cabdi iyadoo ay goobtaasi ku kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo halkaasi waliba ay ka muuqdeen aneerahdee waayeelka iyo caruurta isla markaasina ordayay masaafo dhererkeedu yahay 5 mayl waxaa kaloo goobtaasi lagu soo bandhigay cayaaraha dhaqanka Soomaaliyeed iyo waliba iyadoo uu goobtaasi ka heesayay fanaanka da'da yar ee la holin waayay waa alfanaan Moorka xafladan ayaa waxay ku dhamaatay jawi wanaagsan iyadoo ugu dambeyntii halkaasi uu orodyahankii Soomaaliyeed Cabdi Bile Cabdi dadka si gaar ah ula kulmayay isagoo goobtaasi dadka sawiro kula qaadanayay Salah Donyale Somali Public TV Minneapolis Barline
waxaan filayaa barnaamijkaygii dadweynaha waan cabdibile in door arag qaarkood inay wejiga markay ku dhufteen xusuus qaarkood gashay oo laga helay haye adiguna bal maxaad dadka u xuli lahayd oo qaybta aad haysid ka mid ah waa runtaa wiil barnaamijkaas barnaamij aad u xiiso badan ayuu ahaa balse anigu haddaan dhinacayga u jaleeco oo doqayga idin la aado waxaan jeclaan lahaa inaan soo gudbiyo barnaamij ay soo diyaarisay hay-adda adeega bulshada ee Riverside Plaza Tenant Association barnaamijkaas oo lagu soo gudbiyo arrimo ku saabsan waxbarashada dadka waaweyn oo ayna ka faa'iideystaan dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul gaar ahaan dadweynaha ku dhaqan xaafadda sida Riverside loo yaqaan waa tahay nala daawadayaal waxbarashadu waa furaha iyo fahanka nolosha waa hoggaanka wanaagsan iyo horumarka bulshada waa waxa ku haga aadmiga tubta hagaagsan hadalna laguma soo koobi karo milgaha iyo weliba faa'iidada ay waxbarashadu leedahay ma og tahay haddii aad degan tahay xaafadaha sida Riverside inaad heli karto waxbarasho lacag la'aan ah oo tayo sare leh waxbarashadaasi oo ay fuliyaan ururka Riverside Plaza Tenant Association Riverside Plaza Tenant Association waa urur u adeega dadka degan xaafadda iyo weliba guryaha Riverside Plaza ururkani ayaa bixiya adeegyo kala duwan iyo weliba barnaamijyo ku saabsan waxbarashada dadka waaweyn kuwaasi oo ay soo diyaariyaan isla markaasina ay bixiyaan macallimiin Mareykan ah oo khibrad sare u leh sidoo kale waxaad helaysaan shaqaale idinkugu adeega afka Soomaaliga ah iyo weliba afka Oromada ah barnaamijyadan ayaa waxaa ka mid ah barashada luqadda Ingiriisiga amaba ESL-ka fasalada lagu barto diyaar garowga imtixaanka muwaadinimada dalka Mareykanka ee loo yaqaan citizenshipka ayaa isla markaasina lagu diyaariyaa dadka raba in ay citizen ka noqdaan ee degan xaafadda Riverside Plaza waxaa kaloo lagu bartaa xaruntan aqoonta iyo isticmaalka kombiyuutarka iyo weliba xisaabta waqtiyada iyo maalmaha ay baxaan fasalada ayaa kala ah fasalada kombiyuutarka oo furan Isniinta ilaa iyo Khamiista saacadu marka ay tahay 8 subaxnimo ilaa iyo 9 fiidnimo maalinta Jimcaha ah ayaa waxa ay baxaan fasaladaasi 8 subaxnimo ilaa iyo 6 fiidnimo citizenship classeska ayaa baxa maalmaha Arbacada iyo maalmaha Khamiista saacadu marka ay tahay 12 ilaa iyo 1 duhurnimo fasalada ESL-ka oo ah heerar kala duwan ayaa kala baxa maalmaha Isniinta ilaa iyo Jimcaha 9 subaxnimo ilaa iyo 12 duhurnimo kalaasyadaasi oo kala qaybsan 4 qaybood oo kala ah qaybta 1, 2, 3 iyo waliba 4 iyo 5 waxay sidoo kale kalaasyadaasi baxaan duhurnimada maalinta Isniinta ilaa iyo maalinta Khamiiska saacadu marka ay tahay 12 iyo barka duhurnimo ilaa iyo 3 iyo barka galabnimo kuwaasi oo kala baxay u kala qaybsan iyaguna 3 kalaas oo kala ah kalaaska levelka 1, ka 2 iyo waliba ka 3 sidoo kale waxay kalaasyadaasi baxaan maalmaha Isniinta iyo Khamiista saacadaha 6 habeenimo ilaa iyo 9 habeenimo kuwaasi oo kala ah 3 kalaas oo kala ah 2 iyo waliba 4 iyo 5 isku jira waxaa kaloo jira fasalo ay leeyihiin dumarka oo baxa saacadahaasi laftirkooda haddaba goorta waad maqasheen goobtu waa Riverside Plaza E-Building Brian Coyle Community Center waa 1515 South 4th Street Minneapolis 55454 sidoo kale 425 15th Avenue South Minneapolis 55454 haddii aad doonayso wixii faahfaahin dheeri ah waxaad si toos ah u soo wici kartaa xaruntan oo uu nambarkoodu yahay 612 376 eber 619 waa 612 376 0619 waxaan leeyahay waxbarashada ha ka daalinina iskuulka taga adoo jira 100 jirana waa baran kartaa adoo 40 jirana waa baran kartaa adoo 20
jireen waxbarashada marka iskuulka waxaan ka imaadaa waxaan deganahay 24ka waxaanan imaadaa iskuulkan oo ku yaala Siidar waxaanan u imaadaa aqoon korashadu qiimaha ay leedahay mar aanan bas haysan way jirtaa oo lacagta iska bixinin markii aanan haysan waan u soo lugeeyaa sababtoo ah waxa weeyaan waxbarashadu qiimaha ay leedahay barnaamij aanu qabanay haddaanu nahnay saxaafadda tan Somali Public Media oo aanu qabanay October 13 magaalada Minneapolis xafladaas oo isugu jirtay madadaalo iyo murti aad iyo aadna looga helay dad aqoon-yahanana ka hadleen barnaamijyadii oo highlight ah hadda idin soo wada koobi karno baan idin kala wadaagaynaa daawasho wanaagsan gabdhaha iyo wiilasha sida aad ku quruxda badan u soo labistay indhahayga ay qabanayaan adiga iyo fikirayay maadaama aad Soomaaliya shalay ka soo noqotay su'aal iyo labo mise saddex baan ku hayaa waa sidaad jeceshahay waxaan doonayaa weydiiyo maadaama aad Soomaaliya ka soo noqotay shalay caanageedu ka soo gaartay iskugu weyn horta inaad ka shifto qarsoodiba laakiin haddii caanageedu weydiiyey dadweynaha waxa caanageedu jecel weyn ku jira gabaldhaca kolkii ay tahay oo nibadhu dheemayso wax dhaaxaa raadiyow iyo dhagxaan kaabad lay dhigay gidaaraa la dherernaan jiroo lagu agdhoomnaay dhagahaa la taagnaa inaan wararka dhuuxna dhallinyariyo waayeelba wou dhamac kulaalnaa waa qaadaa dhigayaan intay hadalka dhaariyaan waxna loo dhildhilayaa sidii dhuubka mooliga sidii dhibic xareedoo kale weeye loo dhuray dhuuxiyo lafteennu xuloo dhaashigii noqoy anfaciyo wixii dheefle waa lagu dhammaystaa afartaa dharaashee balaan dhaabad kale taago SPR hadday dhalatay oo dhidibka loo taagi dhawaaqeeda waa kaa ka baxay hirarka dhaadheer dhowdhowda BBC-dii way kaaga dhowdahay sanka oo la duro iyo dhagahoo sarsaran oo 30 meel ka mudan iyo siligyada ilkaha oo sayskooda gaabshana saaxiiba doontee sii korya kala geed raalli layga noqo waa seedun baa ila gashay sarajoogga dherarkana sookal la isku taagiyo sookal waxaa la oran jiray kabo berigii hore la isticmaali jiro dhaadheeraa sookal la isku taagiyo salaamada ma fuushee 6 feet waxbaa dheer whose voice was stopped, a man whose mouth was gagged because he once said no. No to the prosecutor, no to the judge and jury, no to injustice, no to indignity or oppression. He says, don't think I'm beaten, don't think of me as weak or wretched. I'm not a slave, I'm not a destitute. Although they stole from me, I'm not without a home. Although my land's been taken, don't pity me, don't tell me I'll have my chance at glory. Didn't Jesus ask us to turn the other cheek and give the fool who slaps us another chance to show us just how much he hates us? And if that fool kills me, tell me who's the victor. Those were the words of the great Abuan, the Somali Abuan Gari, who recently passed away, articulating on the challenges that can come from initiating change. As a disappointed generation, we sit around as horrors of home comes to us. Violence, carnage, and droughts claiming lives, and heartbreaking spectacles of emaciated bodies are visited by international press. We sometimes lose grip of hope as humanity is being put to test, asking ourselves, who will come to our people's rescue? The UN, yes, we're thankful for temporary relief. We look towards the African Union. Yes, they can supply troops to protect our weak federal government, but they can't change the fabrics of our society. Only we can bring about change. Somali Public Radio
is more than a radio station or an avenue to empower the voiceless. It is also a catalyst for promoting change. It is a reconciliation effort that fosters dialogue. It is a hub that advocates for human rights and universal values. It is the voice of my generation, a generation scarred by civil war, a generation of refugees, a generation extorted by extremism, a disappointed generation, a generation who lacks role models. Many of these individuals have shortchanged our people, supporting officials who have taken our votes for granted, parading themselves in front of the media at every opportunity, taking every opportunity to make us all look bad. I can assure you that in my neighborhood, Cedar Riverside, and in Ward 6, things are going to change. The old status quo will no longer apply. Our people will no longer be used and ignored. I have, a few months ago, declared that I will run for the City Council for Ward 6. Now, I'm not running because I need... Now, let me be assured, I'm not running because I'm a politician, and I'm not running because I need a job. The job that I work in right now pays more than the City Council. The job that I work in right now is more permanent than the City Council. But the reason I'm running is the issues that we face every day in our community is one of politics. We are more than 20%, and that's conservative estimates of the city of Minneapolis. We contribute a great deal to the city of Minneapolis, yet in the halls of power in the city of Minneapolis, nobody speaks for us. واحد يكركع قبيل يبوع وحاسبه هذا كله وراه يجالس وصل دمر في عام والله يعني ما كوميدي يقصر في سنة أوتوبيس الله كعطي ما أنا كيل السودات ليش ايش صوالة وعدي جدا والله يسكت بسوت والله بلا إله هذا روح إله قدر ما غير يصير استثنين يا رزاق افتح صوص على مرة مياه بس كان ما يوقع هذا اليوم 17,000 كوتا بابا 17,000 كوتا والله امشوا الخبرة سوق الخبرة وحكيت له رواق كان 15 وكله والله 17 ما يكعين وراه ما 17 صور هو هيسك بحر وراه كده بيصور اوكي يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح لا هو على سنه وجهه ولا وجهه ابا روح حروحو ما غير ما اسمه مدرس الكوره على هذا الشيء فرحت ايش يا ابو حاجه اللي كده ما هي ولا بيت والله انت وقت السلام عليكم والله يا اوف بالله يا هذا سيدتي سوفي عن سيدتي محمد فريق يا وراه قصة وراه ما تدري وراه قريبها كل انا شيء قال والله عندي والو غير مع المياه بصحوه بحث علوم ما هي وضوء ما لما صوت صومالي اللي كان حبنا عرب الجناية عذر والله عذر الصومالي كيف كبرنا عليكم السلام waxaan meeshan ku haynaa maqaarkii waraabaha waxaan ku haynaa muqmadii oodkicii qoorihiisa waxaan calooshii xidmihii waxaan rabtid xaaji maxaa rabtaa adiga maandhow maalmaha wax ma qaraxay baalkan waxaa laga yaabaa hadda baalkan waxaad baal ducaysane sanada nin waay sanada naag waaye ilaaha qabtaa laakiin waxaan ku siinaynaa annaga كبيسة waxaa la yidhi number 1
war habartii baa igu kaxsane bal ii sheeg weli waxaad naga daawanaysaan Somali Public TV haddii barnaamijyada aad rabtid inaad gaadhid ama aadan ka boganin caawa intaan idiin soo gudbinay barnaamijyadeeda oo kaydsan waxaad ka heli doontaan www.spr.fm waa Somali Public Radio oo la soo gaabiyey /FM lama noolaan karo shaqalaan inaan wax keeno oo dadkuna maaragtay aan uga faa'iideyno annagana aan noolaano waxaa ka qabtaa bas hadda iyo wixii ka dambeeyo aniga faa'iideeyana horta dhegeyso ma maqasha ninka Soomaaliga oo dhintay Soomaaliga isku dilay horta ani ballanayay jeeg oo markaa soo qaato waxaan rabaa qofka adduunka in la iitoosiyo ma jecel waxaan rabaa qof inaan dhaco waa taagayna waddankii nabadu noo noqday maasha allah madaxweyne fiican waan helnay daykeerkii iyo farmashiyaalkii iyo homekeerkii iyo waan ku wareerayaa khasaan yeelma inaan iska iibiyo soomaaliya iska aaday iga heesaa waan ku wareerayaa السلام عليكم وعليكم السلام كل قصص يا بورتيري من غير يا باي بورتيري بالي سلام يا لكن انا اقول ان هذا انا قاعد اقول انا قوي كشمال سيف عم وشقه سنه لا انا اقول بالمية خلاص بجي dadka ma haysan ma badan misan lacagta soo dalba dadka keen markaas lacag ku siinaya marno dagaal ala dhaxay laba qof kaliya ay keen markaas lacag uga xisaabtanaysa ma jirto waxaas dadka keen markaa dadka keen تيجي معي ولا من حسين أرد بيها ما هذا مركي هو وحسيي العادي ما سين العادي وصل مايا ما كتاب تنبسك مصدمية مخاضمة شيخ عبد الله يا شيخ المعنين ويا نكا كرك مروبي نكا كرك مروبي أنا هنا عبد على اسمك يا المروبي daawadayaal waxaan filayaa barnaamijkii ugu dambeeyey iyo kuwii caawa aan idiin soo xulay haddaanu nahay bahda Somali Public Media ama Somali Public TV inaad si fiican uga hesheen barnaamijka waxaa idin hagaaya anigoo ah
maxamed wiilwaal iyo anigoo ah Barliin. barnaamijyadatan waxay idinku kaydsan yihiin haddii aad rabtaan website-ka iyaga oo ah Somali Public Radio ama spr.fm. sidoo kale waxaad nagala saaxiibi kartaan Facebook-geena oo uu ciwaankiisu yahay www.facebook.com/Somali Public Radio. tan iyo kulantidana dambe sidaas iyo nabadgelyo. xasuusantahay Soomaaliya nabada ma xasuusan kasana 94 dhamaadkeedii aan dhashay Soomaaliya nabadana ma xasuusto waxaan dareemaa adiga maadaama ay yar tahay Soomaaliya ma xasuusto nabad Soomaali ma xasuusto Soomaali idoo qarb badan leh madaxa soo qaaday oo xabad iyo balaayo dil leh ka soo go'aana maalinkaas waxaan ku gaaray aniga markaan qor qaaday waxaan ahay 12 jir qor qaado ku bilaabay ilaa hadda waa wadaa 12 jir ku bilaabay ilaa hadda waa waxa go'aankii ugu horeeyay bulshaweynta maxay ku dhahaan wallahi waxay dhahaan mal bulshaweynta nin wali boolaalsinimo salaantaas iska qaadna waxaan sheegay sakarna waa sheekaysano dhalinyaro ay wada wallahi qatarante hadalkayga wax dheef uu rabiyo wax dheef ma ay wada ay sheeg markii oo iskuulka la soo dhameeyo iskool marka soo dhameeyo ardayda bismillah sanadkii waxa qaadatay Mareykanka ma ho lacag aqliga galeen maya sanadkii lacag maya aqoonti leeniyo sanadka cala qof meeqa ku su'aalays ma taqaanay idinka EVC leh hada EVC wax igu soo tuur hada bashito oo daacada uu ku soo tuura may wallahi arday ma sha Allah ma khasho waxa dhahdaa daacadta oo maxal dhahayo waxba ay haysin EV plus ko lagu soo tuura EV plus oo ku soo tuura lacag buliti Soomaali EV plus u sheeg waa ku xumaad waa waliya ma fiyo hadda loo sameeyna gacanta loo sameeyna EV plus war hada suuq bal masajid anaka waxaan ahay arday aan ahay waxaan u imaanay ma taqaana
waddanka inaan fahamno dad waxaan ahayn wax badan waddanka sharciga iska jajeexa iska joog waddankiina dad والله واربا والله حبض هدي لو ودا دغاي سما ديارنا كان لا كعبسن waa xilliga waddanku israaca israaca safiya aduu geena maraykanka ma ka imaanino ma ka imaadaan aniga waxaan isku barnaa iyaga noqonay arday سفينة كنا أو كنا معلي 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 سفينة كنا بما نوجيني نوضواك ما نوع اسماعيل ولا شيء سوا ميلا لا صار ولا جينا اسماعيل ولا ارتميع وحب حربتها بريدن بس سنتين وغربتها عادي معنا اسماعيل ولا ارتميع نو قبرت اسماعيل ولا ارتميع كتبوا اذا نو حجوا تلا بس نوض هذا الوجيه ناقت مالي صار دي معنا بوش انجليز كي دغلد دي عاصمه دي دغلد كل شيء wararkii Soomaaliya iyo kii caalamkoo sugan kala soco Somali Public Radio idaacadda bulshada Soomaaliyeed Somali Public Radio SKR.FM